Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso waa Taleex Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si aad ula socoto barnaamijyadan halkan ka soo deyno. Haddii aad horey inoola joogtayna fiidiyowan la garay siina share garay oo la wadaag asxaabtaada. kusoo dhawaaw sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii 12aad. qaybta 11aad waxay inoo joogtay waxay haddana ay kala tahay in maslax ama marag mid oon loogu yeeri doono. warsame wuxuu niyadda iska leeyahay dirir ayaa raali ka ah in dibadda la idinku celiyo ee hadduu booliiska amar siin lahaa tan idinkuma dhacdeen. waasuga waxay la tahay in meel looga dhacay asaga iyo warsame xoogna loogu diiday xaajo ay wax ka qabashadeeda lahaayeen, taasoo ah xaqiraad aan loo dul qaadan karin. masaladaas wuxuu waasuga maalintaas ku xasuustay gabaygii saahid qamaan oo ahaa rag waxaan ku maamul yaqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tolnimo meerto noo tahaye weliba kaga meel cadahay miirsi diidaniye masallaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaraayo, ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho. dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay kadibna odayaashii ugu warramay sidii ay xaajadii ku dhammaatay, waxna ugu sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska waddooyinka. waa suge iyo warsame kama daawoobin waxyaalihii lagula kacay, inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen. dirir iyo labadii duq halkaas ayay iska raaceen ayagoo tagsigii ku sida riyihii, waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday. waa sugay warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo aan meel cag la dhigo lahayn. waxaa gogasha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh. markay odayaashii soo dhex maraayeen dumarkii ku howlanaa cunto kariska ayuu waa suge inta isha la raacay niyadda iska yidhi allaylehe waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey ayakoo leh makarow dhagax waaye, magacow dhulka waaye, makaraan xirsi waaye, mudullow aqal waaye, meerta waa hal la maalo mooye waxaa la yidhaa isha meesha madow, mooye geel la jaro moono loo qoray waaye, maqaarkii la aslaa masallaa la yidhaa, naagtii maamuli taqaan maaqidaa la yidhaa, muslinkii la waco minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa, waa la meel mariyaa midigtaa la qabtaa wixii ay mar damcaan marxabaa la yidhaa. intii cuntada la sugayey waxaa raggii dhex maray sheeko qayaali ah. dooddu waxay ka furantay warsame oo raggii ugu faalooday wixii kala qabsaday ayaka iyo tagsiilihii odayaashii reer magaalka ahaa. midkood ayaana su'aal dulan ku jirta weydiiyey waa suge iyo warsame oo yidhi haddaa ri xun daraaddeed dhibaatadaas u marteen maxaad waa suge iyo warsamow ka yeeli lahaydeen hadday ahaan lahayd halgeel. warsame ayaa inta si yastiin ku jirta u qoslay oo asaga iyo waa suge isdhugteen oo yidhi ma waxaadan maqal ninkii iyadoo laga sugaayo hal geela guddigii u keenay ri markii sababtii la weydiiyeyna yidhi ridu laba ragga ayay la wadaagtaa oo waa haarka iyo hareedka, laba naagaha ayay la wadaagtaa oo waa laabjilaaca iyo labada naas, laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga, laba lo'da ayay la wadaagtaa oo waa geesaha iyo guduudka, laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha, midna way dheer tahay oo iyadoo aan laba jir gaarin ayay laba jeer dad kaa shabisaa. oday reer magaalka oo laftiisa isku wada in uu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii mar kaliya qaatay oo yidhi warsamow haddaad ariga ku tilmaantay midka xoolaha ugu qiimaha badan waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn, sidaas daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaantid mar haddaadan aqoon u lahayn qiimaha geela. isagoo sii wata ayuu hadalkiisii su'aal ugu dambaysiiyey oo yidhi waxaa sideedaba warsamow iga su'aal ah marka aad sidaa u hadlaysid ma waxaadan maqal gabaygii ku saabsanaa ammaanta geela ee cumar istiiliya oo ahaa intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 12aad ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si aad ula socoto barnaamijyadan halkan ka soo deyno. haddii aad horey inoola joogtayna fiidiyogan sii share garay oo la wadaag asxaabtaada, like tana ha ka hilmaamin.